بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن دعوة يالكوسو دوادا ورك التلفزيون كعبود وقهذا يكلا أتك دعوتان حرمتي سبحية دقمة عبود وعن الديارة نقول محمد عبد جلال سنة وضبط أتك دعوان دونتان على إذن كي إننا إذن كوسو بين دون وحى كمدا ورك الشباب وغير الكوسو قاضي ديجان هوسي ماذا ديجان كعلاش بيها يدلت كمقالة مقدشو xubno ka mid ah ururka al-shabaab oo lagu dilay dagaalo iyo hawlgallo ay sameeyeen ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale ciidamo ka wada tirsan kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo diray ku dhex martay degmada Walaweyn qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu idin haynaa marka horese qadar adeega bulshada ah bartii aad rabtay buuqii horiyo kaga mayran bacad waa boqortaajiis oo bartaan bay ka furan tahay hool baa had weyn oo mukeyf lagu bineeyo bilcdiisu wacan tahay boqortooyo shiraysiyo maalmaha aroosyada maalin la isu soo baxay boqolaal qof qaadaad boqortaajisa ka helaysa beegar iyo digaagii biisiyo shuwaarmiyo baasta noocyo badan iyo malaygii badeeniyo jibsigii barbaartiyo bariiskoo saldaata boqortaajisaad ka helaysa cabitaan babaayo barafkii dhaxyaaliyo burtuqaal qabowba boqortaajisa ka helaysa bunkii iyo kafeygii bagayskii iyo cadayskii badow ha iska jooge boqortaajisaad ka helaysa maqaayada boqortaajiso ayaa waxa ay ku samayn doontaa ilaa iyo 2 nooc oo adeegyo ah kuwaasi oo ka mid yihiin in gudaha maqaayada boqortaajiso lagu samayn doono casuumaadaha si la midana dibadda iyo sidoo kale goobaha dalxiiska lagu samayn doono casuumaadahaaga amaba xafladaha arooska iyadoo ay nashqadayn doonto amaba ay ka shaqayn doonto qurxinta iyo diyaarinta casuumadaasi boqortaajiso inta aad maqaayada boqortaajiso ku jirto ayaa waxa ay ishaadu qaban doontaa meelo kala gedisan sida hoolkii shirarka iyo meelo loogu talagalay fadhiyada khaaska ah ee lamaanaha qoysaska iyo wixii la mid ah intaas waxa ku dheer maqaayada boqortaajiso waxa aad ka heli kartaa cunooyinka ka baxa dalka maqaayada boqortaajiso ayaa waxa ay ku taalaa ex-dahshiil degmada Cabudwa ma wixii faahfaahin ah oo intaas dheer waxa aad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada ka muuqda Amerika iyo Yurub qaaradaha Australia iyo Afrika labadeeda cirif dunida idilkeeda agabka qurxinta oo dhan meeyabka hablaheen casrigan indhakuusha habluhu aanay deynin kareenkii u dambeeyay oogadaada iftiin shacceeda idilkeeda ka ilaalin lahaaba alkhayraadku ugu diyaaree macmiilow baloogow qalabkii isboortiga shayna aanu ka maqnayn baad alkhayraad ka helaysaa aayar maad u timaadid caanihii ubadkeena borotiin la asteeyay ilmihii dhadhanshaana runtii u bogaayo alkhayraad baad ka helaysaa aayar maad u timaad alkhayraad hadaba carwa alkhayraad ayaa waxyaabaha aad ka heli doonto waxaa ka mid ah doornooyin birmaad doornooyinka turkiga kareenka kanza kareenka nuura batal birimo turkish kareenka snail saliida bilan saliida oliva carfisooyin originala kareemooyinka tinta nafaqooyinka tinta kareenka kilisriidka dhammaan waxyaabaha uduga sida catarada barfuunada carfisooyinka iyo wixii la mid ah hadaba carwada alkhayraad ayaa waxay ku taalaa inta u dhaxayso shirkadda Olympic iyo sidoo kale stationka weyn ee degmada Cabudwaaq wixii faahfaahin oo intaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada saaran أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك wargelin dhammaan waxaa lagu wargelinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku nool degmada Cabudwaaq iyo nawaaxigeeda in ay yimaadeen degmada Cabudwaaq Shariif Maxamed Shariif Ibraahim iyo Shariif Aadan Shariif Ibraahim culimadaasi oo ku takhasusay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah sida jinka isha sixirka walwalka waswaaska isla hadalka wadna xanuunka joogtada ah sidoo kale culimadaasi waxa ay u leeyihiin daweynta khibrad muddo dheer ah oo gaarayso ilaa 15 sano iyada oo Ilaahay sababtooda ku caafiyay dad badan oo ku nool dalka iyo dibadiisa loogana caalwaayay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah culimadaasi waxay xarumo kala duwan ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya culimadaasi waxa ay degmada Cabudwaaq joogi doonaan muddo kooban culimadu waxa ay ka howlgalayaan xarunta isku daweynta Quraanka iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee al-Shifaa oo ku taala degmada Cabudwaaq gaar ahaan xaafadda Horseed agagaarka Ceel Sacuudi fiiro gaar ah isqoristu waxa ay ka socotaa xarunta cusub ee markazu Shifaa wixii faahfaahin ahna waxaad kala xiriiri kartaa eberle xal 7 3329 36 ama eberle xal 8
47 48 66 haddaba ballantayadu waa innaga oo horay u gaarna markazu shifaa litadaawi bilqur'aani wassunna. أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك. markale isku soo laabashaha boondaawadyaal warkii oo fidsan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada iyo sidoo kaleeto midda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa shir waxa uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isaga oo daba socda shirkii Dhuusamareeb 3 sida ay qodobkaasi inoogu faahfaahinayso wariyahayaga Ubax Cabdi Axmed. waxaa maanta si rasmi ah xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee Muqdisho uga furmay shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shirkii Dhuusamareeb 3 waxaana looga hadlayaa dhamaystirka hanaanka doorashooyinka qaranka. shirka madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer oo hore baaqday sababo la xiriira khilaafka u dhaxeeya madaxtooyada iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. inta uu shirku socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka si go'aamo rasmi ah looga gaaro loona qabto doorasho la isku raacsan yahay. maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay'adaha dawladda xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa kulankan kor kala socda waxaana jira in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay cadaadis ku saareen in ay Muqdisho u yimaadaan shirkan. Ubax Cabdi Axmed, CWTV, Caabud Waaq. deegaanka Arbaco oo hoos yimaada deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho waxa weerar ku soo qaaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhashay israasaasayn degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ku dhexmartay ciidamo ka wada tirsan daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi dhawaan la geeyay. goobjoogayaal ayaa waxay inoo sheegeen israasaasayntaasi ay dhacday ama ay ka dhacday suuqa Muuri ee u dhawaargada degmada Walaweyn ayna ka dambeysay kadib markii khilaaf soo kala dhexgalay laba askari oo ka tirsan ciidamadaasi. inta la xaqiijiyay israasaasayntaasi ayaa waxa ku geeriyooday 3 ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamadii dagaalamayay halka ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah dadka shacabka ah. wararka laga helayo degmada Walaweyn ee gobolkaasi Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in wali xaaladdu ay kacsan tahay degmadani Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose isla mar ahaantaana uu xiran yahay suuqa Muuri oo ah halka ay labadani ciidan isku dagaaleen. degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhowr jeer oo hore waxa ka dhacay dagaal beeleedyo soo laabtay taasi oo ay sababtay in dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay geeyaan ciidamo isku dhafa. kamid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka sameeyeen magaalada banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan falkii maalinnimadii shalay ahayd ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa gabar kamid ah ardaydii sanadkan qalin jabisay oo jirdil iyo dil la isugu daray laguna geystay magaalada Muqdisho. markale wariyahayaga Ubax Cabdi Axmed. dad u badan dhalinyaro iyo haween ka caraysan falkii lagula kacay Xamdi ayaa waxa ay weerareen daartii lagu kufsaday lagana soo tuuray Xamdi Maxamed Faarax iyaga oo dab qabadsiiyay qayb kamid ah dabaqa guriga ay dadkan weerareen ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in uu ahaa dabaqii lagu kufsaday laguna dilay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd 19 sano jir kana mid ahayd ardaydii sanadkan gashay imtixaankii shahaadiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya dhamaysayna dugsiga sare. qaar ka mid ah dadkii guriga weeraray oo banaanbax ka dhigay dabaqa ayaa waxa ay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dameeyay falka kusiga iyo dilka ah ee u geystay dhibane Xamdi Maxamed Faarax.
waxa ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in ay arrintaani wax ka qabtaan isla markaasna ay tallaabo sharci ah ka qaadaan dadkii falkaasi geystay oo qaraabadooda booliska ay sheegeen in ay qaar ka mid ah soo qabteen. Ubax Cabdi Axmed, CWTV, Cabudwaaq. saraakiisha ciidamada danab ee ka howlgala gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixiyeen howlgallo ay si wadajir ah u wada fulinayeen ciidamada commandoska ee danab iyo kuwa maamulka Jubbaland kaasi oo ka dhanaha ururka Al-Shabaab. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada Disheeg, Waamo, Maroodi Gubow iyo sidoo kale Daayombo waxaana saraakiisha ka tirsan ciidamada danab ay sheegeen in howlgalkaasi lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. taliyaha guutada 16aad ee commandoska xooga dalka Soomaaliya ee danab gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 2 sargaal oo sarsare kana tirsan ururka Al-Shabaab sidoo kalena ay burburiyeen saldhigyo ururkan ay lahaayeen. deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada danab iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ka wadeen howlgallo kala duwan hase yeeshee mararka qaar ayaa waxa ay la kulmayeen weeraro kaga imaanaya dhankaas iyo ururka Al-Shabaab. guud ahaan daawadayaal waxaynu intaas ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Cabudwaaq anigoo Maxamed Cabdi Jalasana ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulankayaga xiga midkan waxaan idinkaga tagaynaa sida nabadu waa furaha nolosha haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad ay wax ku baratid ma shaqaysan kadib ganacsiga ma furan kadib ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhashaa dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan fursho la'aan qadarin la'aan qabad la'aan moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay dhashaa ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo amis. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisi waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma inaa nas'aluka al-amna wal-iimaan ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan. marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado. waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aanan nabad haysan shirki la qabtaba adoonshina warshoosh loo nabad dashaasha iniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muran waxsiishiga iyo la shahoor hadal shikar samaho adoo shayba sheegta nuxur daran la shansharo meel shidii noqoto shacabigu mar rabe ha laga shiro shira danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihii sharwado shib naga dhahaa intay garmaqaate iyo garaad xumay noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gaf iyo ceebaan harayn gadoodkii muxuuna baday maxaa gacal kala anbaday maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray maxaa guur seegtay inan maxaa godob layska galay maxaa gashi layska dhacay maxaa guryo nabad ahaa la gubayee galangashaa maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna baday nabadee macaanee
kaneeca udgoone iyo barwaaqada nimca lagu qaboobay inta naasirmaano laga jaqo nafaqaday naxariista eebahay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilayse